markale kula wanaagsan xogteennan ee idinku soo foolan waxaan ku eegi doonnaa haddiina la soo weeraro kama lablabayn doonno in si wada jir aan u qaadno weerar milatari annaga iyo bakistaan iyo sacuudiga waraysigii u horreeyey madaxweynaha ee turkiga oo uu si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda ee heshiiska milatariga iyo istifaaca u dhexeeya turkiga bakistaan iyo sacuudiga waraysigan oo madaxweynaha turkiga urdugan uga hadlay guud ahaan meel kasta oo dunida islaamka ah oo iskormaad uu ka socdo ayna israa'iil khatar ku tahay laga bilaabo soomaaliya suuriya falastiin liibiya suudaan ilaa iyo iiraan dhinaca kale madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa falcelintiisii ugu horraysay waxaa dunida uga yaabiyey heshiiska milatariga iyo istifaaca u dhexeeya saddexda dowladood ee sunniga ee islaamka muxuuse ka sheegay haddaba xoggaan oo dhammaystiran ayaan ku eegi doonnaa xogteennan ee idigu soo fool leh marka horese nagu taageera la garinta muuqaalkan iyo sabskraibka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isniintii muujiyey farxad weyn markii la siixay heshiiska ee istifaaca ee dhex maray sacuudiga turkiga iyo bakistaan iyadoo ku tilmaamay tallaabo weyn geesinimo leh oo muhiima trump ayaa ku qoray boggiisa ee loo yaqaano runta baraha bulshada aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko sacuudiga turkiga iyo bakistaan oo dhowaan saxeexay heshiiska ee istifaaca milatariga ee maka wuxuu la raaciyey in heshiiskan uu ka turjumayo marxaladaha isu dhowaanshaha wuxuu raaciyey xambalyo hoggaanka weyn ee sacuudi arabiya turkiga iyo bakistaan tani waa tallaabo weyn oo geesinimo leh oo muhiima hadalladan ee trump ayaa ahaa falcelintiisa ugu horraysay ee uu ka bixiyey heshiiska ee milatariga ee istifaaca u dhexeeya saddexda dowladood oo hadalayn badan ka abuuray guud ahaan caalamka iyo bariga dhexe gaar ahaan iyadoo khubarada ee arrimahan la socda ay sheegeen in heshiiskani uu cabsi iyo shaki weyn ka abuuray labadaba israa'iil iyo iiraan haddaba dhinaca kale waraysigii ugu horreeyey oo muddo sannadaha noociisa u bixiyey madaxweynaha turkiga urdugan wuxuu uga hadlay isla heshiiskan ee difaaca iyo arrimo badan oo khuseeya dunida islaamka iyo dagaalka bariga dhexe iyadoo si cad ugu dhawaaqay in aysan ka labalabayn doonin turkiga sacuudiga iyo bakistaan inay qaadaan weerar wada jira cid kasta oo soo weerarta sidoo kalena uusan ka labalabayn doonin in dagaal uu galo haddii loo baahdo madaxweynaha turkiga urdugan ayaa ka jawaabay su-aasha ugu horraysa ee la weydiiyey oo ahayd warbaahinta israa'iil waxay sheegeen in turkigu yahay cadowga ku xiga ee iiraan urdugan ayaa sheegay in dalkiisu uusan ka hadal dagaal si kasta haatee wuxuu ku nuxnuxsaday in turkigu uusan ka labalabayn doonin inuu istifaaco haddii la soo weeraro iyaduu yidhi kama labalabayn doonno inaan dagaal qaadno kama carari doonno haddii qof uuna soo weeraro dagaal urdugan ayaa carab ku adkeeyey in heshiiska ee maka ee difaaca wadajirka u dhexeeya turkiga bakistaan iyo sacuudiga uu fariin muhiima u diray adduunkao dhan wuxuuna tilmaamay in heshiiskani uu ku salaysan yahay mabaa'dida ee difaaca wadajirka ah kaas oo u oggolaanaya waddamada seexay in ay si wadajir u qaadaan weerar milatari haddii mid ka mida lagu soo rogo gardarro oo dabadeed madaxweynaha turkiga urdugan ayaa si cad u sheegay in habka difaaca ee lagu qeexay heshiiska ee milatariga ee turkiga sacuudiga iyo bakistaan uu asal ahaan la mid yahay mabda'a difaaca wadajirka ee ku xusan qodobka shanaad ee ururka naato iyadoo carab ku adkeeyey in weerar kasta oo lagu qaado turkiga sacuudi arabiya ama bakistaan uu kicin karo weerar ka yimaada saddexda waddan oo wada jira wuxuu intaas ugu daray in saddexda waddan ee awood u yeelan doonaan in ay iska difaacaan nooc kasta oo weerara iyadoo loo eegin cidda soo weerartay madaxweynaha turkiga ayaa carab ku adkeeyey doorashada ee maka oo ah goobta ee lagu seexay heshiiskani oo siiyey muhiimad gaara gaar ahaan marka loo eego duruufaha caalamiga ee hadda jira iyo dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan iyaduu diiday in heshiiskan lagu tilmaamo isbahaysi milatari oo waddamada sunniga ah urdugan ayaa carab ku adkeeyey in sacuudi arabiya bakistaan iyo turkiga ay had iyo jeer ahaayeen ilaaliyaasha ee nabadda isla mar ahaantana ay sii wadi doonaan isla dadaalkaasi madaxweynaha turkiga ayaa tilmaamay in albaabada heshiiskan uu u furan yahay waddamada kale iyadoo carab ku adkeeyey in masar ay ku biiri karto isla mar ahaantana heshiisku uusan ku koobnayn saddexda waddan ee aas-aasay iyadoo ka hadlayay soomaaliya madaxweynaha turkiga urdugan ayaa sheegay
in uusan aqbali doonin Turkiga iskuday kasta oo lagu kala jarayo ama lagu kala qaybinayo Soomaaliya, iyadoo sheegay in sidoo kale Turkigu ay joogto gudaha Soomaaliya ayna jiraan heshiisyo badan oo difaaca ay wada gaadheen Turkiga iyo Soomaaliya. Wuxuu sheegay in kadib markii Israa'iil ay dhibaato ballaaran gelisay guud ahaan Bariga Dhexe, faragelin kasta oo ay ku samayso gudaha Soomaaliya ay tahay waxaan la aqbali karin. wuxuuna qiray in sidoo kale uu kala hadlay madaxweynaha Mareykanka Trump arrinta Soomaaliya iyo inuusan aqbali doonin in Israa'iil ay khatar geliso madaxbannaanida ee Soomaaliya. madaxweynaha Turkiga Erdogan oo markii ka hadlayay dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka wuxuu sheegay in Turkigu uu rajaynayo in la gaadho nabad isla mar ahaantaana la soo afjaro dagaalkan sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo xusay saadaalinta ee goorta uu dhammaan doono aysan ahayn wax si fududi loo go'aamin karo. wuxuu carabku adkeeyey in Turkigu uusan taageerayn dagaalka balse uu taageersan yahay nabadda, laakiin wuxuu sheegay in Israa'iil ay tahay sababta ugu weyn ee dagaalkan iyo cidda mas'uulka ka ah, wuxuuna tilmaamay inay si joogto ah u dhiirigelinayso ikhtiyaarka ee dagaal joogto ah iyo in waddamada kale ay sabab u noqdaan khasaare culus. madaxweynaha Turkiga oo ka hadlayey muhiimadda ee marbiyoodka Hormuz oo hadda noqday halka ugu weyn ee iskoormaadka ee dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka, Erdogan ayaa dib u furista ee marbiyoodka Hormuz ka dhigay mudnaanta koowaad ee Turkiga, iyadoo ka digay in xidhitaanka ee joogtada ah uu dhibaato weyn ku yahay ganacsiga ee dunida. wuxuuna xusay in ganacsiga adduunka uu ka faa'iidaysanayo marbiyoodkan ee muhiimka ah ayna laga maarmaan tahay in dib loo furo sida ugu dhaqsaha badan si looga hortago carqaladaynta ee sahayda ee tamarta ee dunida. wuxuu xaqiijiyey in Turkiga iyo Iiraan labaduba ay taageersan yihiin joojinta xayiraadaha ee saaran marbiyoodka Hormuz. duqeymaha militariga ee dalka Iiraan ay ku beegsatay waddamada khaliijka, Erdogan ayaa xaqiijiyey in Turkigu uusan taageersanayn dagaalka guud ahaan gobolka, wuxuuna ku celiyey in Israa'iil mas'uul ay ka tahay hurinta colaadda iyo in siyaasaddeedu ay horseeday in dalalka kale ay bixiyaan qiimo culus. madaxweynaha Turkiga ayaa ammaanay doorka dalka Qatar ee dhexdhexaadinta heshiis u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. wuxuu sheegay in Qatar ay door muhiima ka ciyaartay arrintan, mustaqbalkan ay sii wadi doonto, iyadoo sidoo kale uu sheegay in Qatar ay door weyn ka qaadatay in wax laga qabto dhibaatada ee Suuriya, wuxuuna ugu baaqay iskaashi iyo tallaabo wada jira oo dhex mara dalalka ee Islaamka. waraysigan ayaa sidoo kale madaxweynaha Turkiga Erdogan wuxuu ku taabtay arrinta ee Kurdiyiinta iyo xaaladda Suuriya, wuxuuna carab ku adkeeyey in Kurdiyiinta Suuriya ay heli doonaan xuquuqdooda iyo in Turkigu uu ka shaqayn doono sidii loo ilaalin lahaa midnimada iyo wadashirka ee Kurdiyiinta ee Ciraaq, Iiraan iyo Suuriya, iyadoo xaqiijiyey in waddankiisu si joogto ah uu ula xidhiidho maamulka cusub ee Suuriya iyo in tan iyo isbedelada ka dhacay Suuriya uu wanaagsan yahay xidhiidhka labada dal. wuxuuna yidhi Suuriya waa walaalaheen, kama tegi doono Suuriya, iyadoo ku nuxnuxsaday in dalkiis uu sii wadi doono wax kastoo awooddiisa ah si loo xaqiijiyo xasiloonnida ee Suuriya. madaxweynaha Turkiga oo ka hadlayay doorka militariga ee Turkiga ee Suuriya oo walaac ballaaran Israa'iil ku abuuray, iyadoo shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu booqdo Dimashq sida ugu dhaqsaha badan, waxaana uu raaciyey inuu gutay Turkigu waajibaadkiisa ahaa inuu taageero maamulka cusub ee Suuriya muddooyinkii la soo dhaafay iyo mustaqbalkaba. madaxweynaha Turkiga oo ka hadlayey xaaladda qadsan ee Lubnaan oo weeraro joogta ah Israa'iil ay ku hayso, wuxuu tilmaamay in sii socoshada weerarada ee Israa'iil ee Lubnaan ay tahay arrin walaac weyn ku abuurtay Turkiga, iyadoo carab ku adkeeyey in dalkiis uu sii wadi doono bixinta wax kasta oo awooddiisa ah si loo taageero madaxbannaanida ee Lubnaan iyo in laga hortago in Israa'iil ay ku soo rogto qabsasho buuxda. wuxuu sheegay inuu la hadlay madaxweynaha Mareykanka Trump booqashada ugu dambeysay ee Turkiga uu ku tegey, iyadoo kala hadlay baahida loo qabo in la joojiyo weerarada ee ka dhanka Lubnaan. waxaana madaxweynaha Turkiga uu intaas ugu daray in mudnaanta la siiyo Lubnaan oo laga badbaadiyo wareegga ee rabshado cusub. Erdogan ayaa sidoo kale carab ku adkeeyey in Israa'iil ay tahay gardarrada, Lubnaanna ay la kulmayso weeraro joogto ah oo Israa'iil ay ku hayso. waraysigani madaxweynaha Turkiga ayaa ka hadlay arrinta ee Gaza,
wuxuuna sheegay in turkigu uusan ka tegi karin iyadoo ku nuxnuxsaday in dalkiis uu sii wadi doono gudashada ee dhammaan waajibaadka saaran Gaza. wuxuu intaas ku daray Xamaas inay muujinayso iskaashi dhaba oo ay ku fulinayso ballanqaadyadeeda, halka dhinaca kale Israa'iil aysan muujinayn habdhaqan. wuxuuna sheegay madaxweynaha Turkiga in si joogta ah uu digniintiisa ugu gudbiyo Maraykanka, iyadoo ugu baaqiyay in Israa'iil si dhaqsale ay u soo afjarto weeraradeeda ee weli ay ka wado Gaza. iyadoo ka hadlayay Suudaan, Erdogan wuxuu sheegay in si wanaagsan uusan u arkin waxa ka socda Suudaan, laakiin wuxuu xaqiijiyey taageerada joogtada ah ee Turkigu u hayo dalka Suudaan iyo madaxbannaanideeda. wuxuuna sheegay inuu xidhiidh la leeyahay madaxa golaha ee madaxbannaanida ee Suudaan, Cabdifataax al-Burhaani, iyadoo tilmaamay inuu yahay xidhiidhku mid wanaagsan. wuxuuna xusay in uu soo dhoweeyey Turkigu madaxa gobonimada ee Suudaan, iyadoo ku tilmaamay hogaamiye u qalma in marxaladdani uu ka saari karo Suudaan. Liibiya, Erdogan ayaa xaqiijiyey sii socoshada xasiloonnida iyo xidhiidhka Turkiga iyo Liibiya, iyadoo sheegay in Ankara aysan ka tegi doonin Liibiya. wuxuuna sidoo kale sheegay iskaashiga labada waddan ee qayb ka ah saliidda in Turkigu uu ka shaqaynayo qiimaynta iyo maalgelinta kaydka ee saliidda ee Liibiya, iyo in shirkadaha ee batroolka ee Turkiga ay qaadeen tallaabooyin oo dhinacaasa